الله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوي تاريخ ذي هجر وتعي جماد الأخير لباتكيدي كنا أفر بقولي كوبيا أفرتن وافق سنة تاريخ الميلادي بشي لبعض فريتو من كيدي لبعض كونيا سجالية طبعا لبعض كونيا لبعضن هبين كونيا هبين جمعة إن شاء الله تعالى وحنا قادم دونا درس مهمة وكصابسن ودبلحات كبرشدينا iyo taranka bulshada iyo bulshada si jiritaan keeda iyo bulshadu si ay facdama u yeelato isirdama looga helo kaasoo ah guurka. waxaa jira caqabado fara badan oo hortaagan guurka haday noqoto mid daakhili iyo mid khaarijiyaba. marka insha Allah ta'ala darsigeena wuxuu ku saabsan yahay caqabado fi dariiq الزواج, caqabadaha teedadka tiirarka hortaagan guurka. insha Allah ta'ala waxayna la wadaagi doonaa walaalkeen macallin Sheekh Mahdi Ibrahim Mohamed oo rubع qarnigii ugu dambeeyay ku jiray waxbarashada xirfad badan oo da'yarta iyo barbaarinta iyo kobcinta iyo jiil soo saaridda iyo mustaqbal dhisidda. insha Allah ta'ala isaga oo bixi doona falyatafaddal مشكورا ومأجورا وبارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii anugu de sheekh mayhiyo waan iswada garanaynaa dad badan, laakiin waxa isoo kiciyey ama igu kalifay waa duruuf iyo waayo aan darafyo badan ka istaagay iyo dad fara badan oo waliba dhalinyar ah, qaarkoodna iminka dee dhalinyarnimadii ay kaba sii baxayaan oo ay shaykhuuqadii ku tallaabsadeen oo duruuftaasi ama caraaqisha iyo carqaladaha guurka ka hortaagan iyo caqabaadku uu noqday wax ay nolol qoys ku dhisan kari waayeen. marka taasaa igu kaliftay mowduucan. guud ahaan waxaan ka warqabnaa inuu ilaahay ku abuuray bini aadamka ama dadka xubbu shahawaat ama qaraa'istooda inay gutaan. xubbu shahawaadka ilaahay qur-aanka kaga warramay waxaa ugu horeeya ee uu alle ugu horreysiiyey waa dumar, iyo tafiirta ama warshadaasi waxay soo saarto gaar ahaan wiilal. dabadeedna liisku uu sii soconayaa dahab fara badan oo aad u laalaaban ama aad u badan, lacag waliba tii beriyii hore la isticmaali jiray baa ilaahay qur-aan ku sheegayaa qalinka ka samaysnayd, gaadiid fardihii waagaasi oo iminka dee gawaadhida iyo gaadiidka la isticmaalo kuwa ugu waaweyn ka mid la misaal noqon kara, xoolaha nimcooleyda ah, beeraha iyo dalaga, dhammaan waxaasoo dhan oo ah sida uu ilaahay tilmaamay raaxada adduunka. laakiinse ilaahay wuxuu leeyahay wallaahu cindahu xusnu lma'aab. zuyina linnaasi xubu shahawaat min alnisaa'i waalbaniina waalqanaatiiri almuqantara min aldahabi waalfidda
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. مركا ما دام وح الله جل جلاله إن السمي وينقو أبو رأيتهاي قف ولبوا وحوش عليهاي مركا جور كنا ووسيلة حقيقي صح فطرة داسي إن يسي في عن أفشو إلهي وحو كدقي جوركا إلالين وكو إلالين أيو نسلقا يجريتانك بشركو إنو سيجرو وآنو انحرافين وآني شهوات كالي وكو ألا بنيي أهي آني ويدارنين ودسمها qoyska iyo mujtamacaadka aanu xidhiidhkaasi asalka iyo faraca leh ee markaasi nasabka iyo sihriga leh aanu meesha ka bixin sida iminka adduunyada aynu ku noolnahay waqtigan aynu noolnahay caadada adduunyada ka noqotay ama caado bayaan odhanee noqotay wax aan laga ceebsanin waxay ku bilaabantay markii hore in lala dhuunto haddana waxay noqotay in kooxo gaarihi is urursadaan waxaa laga yaabaa dad badani markaan waxaa ka warramo inay dhagaha taagaan oo yidhaahdaan waxaas waa maxay waxaa jira wax la yidhaahdo LGBT waa erayo la soo gaabiyey waxaanay u taagan yihiin waa af ingiriisi eltu waxay u taagan tahay lesbian jiiduna waxay u taagan tahay gay waan ereyada af Soomaali waan ku sheegi doonaa piduna waxay u taagan tahay bisexual tiduna waxay u taagan tahay transgender ereyadaasi waxa weeyaan eltu waa dumar wax u doonta ama wax ka daya jiiduna waa gay oo waa rag wax u doonta biduna waa bisexual waxa weeyaan mindi laba af leh labada dhinacba wuu shaqeeyaa xaggan iyo xagganba tidana waxa la yiraahdaa transgender ama waa jinsigii oo isbedelay intuu qalliimo iyo ma garanaysaayay galay surgery dabadeedna ninkii features ama qaabab dumar loo sameeyay gabadhiina sidoo kale la sameeyay adduunyada iskuulada ayaa loogu dhigaa dadkeena loo dhigaa ingiriiska oo meelihii ugu dambeeyay ka fayooba ahaa sanad dugsiyeedkan ina dhaafay aynu bilownay iminkaan ku dhex jirno bishii 9aad ayuu ku bilaabmay waxa la soo diray buugag caruurta yaryar ee rawdatil atfaalka ama KG-ga loogu dhigayo aabbo wuxuu la joogaa saaxiibkii sariirta ayay wada seexdaan waxbay wada cunaan aabbo wuxuu ka xanaaqsan yahay saaxiibkii oo shaarkiisii kaawiyad kaga gubay waxyaabo noocaas ah waa lagu barbaarinaya haddii uu ku bilaabday qarsiimo iminka baasaboorada kelmadda gender la yidhaahdo female ama dhadig iyo male baynu naqaanay f iyo m baa loo soo gaabiyaa ma jirto iminka baasaboorada waxaa lagu qoraa jinsi kala dooro kuwan weliba LGBT baan idiin sheegay mid kalaa ka sii dambeeyo la yidhaahdo Q oo ay dhawaan ku soo dareen Q waxa weeyaan anigu waxaa midnaba kuma jiree haddaan doono xoolahan wax u doontaa ama xayawaanada waxay Soomaalidu yiraahdaan waxay abeesa leedahay ilmaheedna leh waxa ay kuwaasi aynu u doonano wax ama aynu haysano nolol fiican inay ku nool yihiin caruurtii Soomaaliyeed iyo caruurtii muslimiinta ahayd iyo dadkii
iminka yuhuuddii iyo muslimiintu aad bay u diideen yuhuudda oo kale go-aan bay ka qaateen waxay yidhaahdeen annaga carruurteeda waxaa laguma barbaarinayo waay waxaan uga socdaa oo igeliyey sharaxaasi inxiraafaadka ama isbedelada ka dambeeya markaasi alahwaa'i waashubuhaat inuu qofku hawo raaco dabadeedna wax ka qaldamaan uu mugdi ka galo hawadiisii say ula sii socoto wixii laga xishoon jiray ama ceebta ahaa ay wax qurux badan laga dhigo waay aayaad qur'aaniya ayuu ilaahay guurka ku dhiirigeliyey guurku innaga agteenna wuxuu leeyahay maqaasid iyo ujeeddooyin bale maqaasidda ugu waaweyn waxaa ka mid ah inaad adduunyada ku soo kordhiso durriyad ilaahay caabudda injaabu durriya allatii tacbudu rabba albariya inaad kaa beeranto iyadoo aanu qofku markuunu guursanin aanu ogeyn macruur buu yeelan doonaa oo ilaahay qaybihiisa waxaa ka mid ah inuu cidduu doono wiilal siiyo lilaahi maa fi الsamaawaati wamaa fi اlard yakhluqu maa yashaa yahabu liman yashaau inaatha wayahabu liman yashaau dukuur aw yusawijuhum dukraanan wainaatha wayajcalu man yashaau caqiima waa qaybo ilaahay uu sameeyey adoon ogeynkaad ku biiri doonto markaad guursanayso haddana qasdigaaga inaad ka dhigato inaad ummad iyo durriyad alle caabudda oo markaasi ilaahay wuxuu u abuuray xaqiijisa inuu alle tagoogaaga ka beero waaye marka waxaa ka mid a maqaasiidda ummadda nebi maxamed sala allahu calayh wasalam inaad badiso siduu nebiguba yidhi sala allahu calayh wasalam ummadaha ayaan idinkula tartami doonaa tirada innii mukaahiru bikum alumam ummadaha ayaan xagga tirada idinkula tartamay guurka badiya ilaahay baa ina amray fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathnaa wahulaatha warubaac guursada haweenka laba ayuu ilaahay ka bilaabay 2 iyo 3 iyo 4 markaa waa tarqiib islaamiya in magaranaysaa la guursado oo ilaahay uu inagu tarqiibinayo ama inagu boorinayo waana sunnadii ambiyadiisa calayhim assalaatu wassalaam waa sunnadii ambiyada walaqad arsalnaa rusulan min qablika wajacalnaa lahum aswaajan wadurriya ilaahay baa leh waxaan soo dirnay rusul kaa horraysay nebi maxamedow sala allahu calayh wasalam oo waxaan noo yeelnay ooriyo iyo awlaad ama tafiir bal ee ambiyada qaarkood baa ilaahay baryaayay oo calaacalayay oo cabatinkoodii iyo ilaahay isu bihinbihintoodii ilaahay qur-aanka inoogaga warrama rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru lwaarihiin markaa durriyaddaasi iyo aswaajtaasay lahaayeen waa manhaj nabawiya oo salafkii ummaddeennanina qaateen cabdillaahi bin mascuud radia allaahu canhu wa ardaah ayaa wuxuu yidhi hadal cajiiba wuxuu yidhi low lam yabqa min ajalii ilaa 10 ayaam haddaan aniga ajashayda ama noloshayda ka harsanayn 10 maalmood mooye wax kale wa aclamu annii amuutu fii aakhirihaa yowman oo maalinta ugu dambaysa aakhirkeeda inaan geeriyoonayo aan ogahay lii fiihinna tawla nikaax macnaha awood aan awoodna u helayo inaan guursado latasawajtu makhaafata alfitna waan guursan lahaa aniga oo ka cabsoonaya fitno inaan ku dhaco imaam axmed raximahullah ayaa isaguna hadal cajiib badan buu wuxuu yidhi laysat alcusubatu min amri alislaami fii shay doobnimadu ama gashaantinimadaba dhe cusuubada waxaa la yidhaahdaa islaamka arrinkiisa meel kamagama jirto sidaa daraaddeed waxaynu fahmi karnaa muqadimadaa yaree kooban ahmiyadda uu leeyahay in la guursado iyo dhibaatada iyo waxyeelada ay leedahay ka fogaanshaha guurkaasi iyo sababta runtii xeesha dheer ee weyn ee dhibaatada ku keeni karta afraadda iyo mujtamacaadkaba
oo kala furfuri karta oo dacfi ku ridi karta bal ee tagsiin karta iniintii mujtamaca iniinta mujtamacuna waa usrada usradu waa iniinta uu mujtamacu ka biqlo ama uu ka beermo markaas sababtaasi haddii muxuu ahaayey waxa ka mid ah ka tegistiisa ama yarayntiisa ama caqabado iyo ma garanaysaaye carqalada la hordhiga guurka la hordhigayaa wuxuu sabab u noqonayaa fasaad inuu dhallinyarada dhexdeeda fasaad ku faafo waana ta aniga dareen ahaan igu kaliftay darsigan caawa aniga oo aan aqoon idin dheerayn ama cilmi idinka badnayn haddana waxa weeyaan qofka bini aadamka waxyaabaha kiciya waxa ka mid ah dareenka hoos ahaan naftiisa ku huraya kaasaa kiciya dhalinyaro badan baan dee la macaamilay qaar fara badan ayaanu waqtiyo kala duwan wada qaadanay dabadeedna waxaan arkaa dhalinyaradii qaarkood wax bartay qaarkood ma garanaysaayay diin iyo maadiba dhismay haddana weli markaan iswaraysanno odhanaya weli waxba ma jiraan oo reer maan iyo samaynin marka guurku maadaama uu yahay udubdhexaadka mujtamaca inuu fufo u ah udubdhexaad muxuu ahay sharci ahaan iyo xagga shareecadana aynu soo sheegnay ilaahay inuu inoo abuuray inaynu qaraa'isteennaasi iyo ma garanaysaa shahawaadkeennaasi fitriga ah gudanno oo uu qofku daaqadiisa dihniga ama awooddiisa maskaxda iyo jidheedba uu bixiyo cibaado ku bixiyo muxuu ahaye kasbiyadin xalaal iyo risiq raadis uu ku bixiyo shahawaadkiisa iyo noloshiisa qoys uu ku bixiyo guurkii maanta caqabado waaweyn baa hortaagan waa nuxurkii caqabadahaasi aad bay u badan yihiin idinkuna waad ogtihiin waana dareemaysaan inta mushkiladda ay la deriska tahayna waxa muxuu ahaye ka mid ah dee dhallinyaro badan oo laga yaabo inay hadalkaygani ama gaadho ama iminkaba ay dhegaysanayaan waxaa turunturada iyo caqabadda ugu weyn ee qof kastoo guur doonaya runtii ku noqotay bale waxyaabaha laga cabsoodo ee dhallinyarada ay ka baqdaan ee cabsida ku rida ee noqotay waxaa ka mid ah meherka waxaa la yidhaahdaa almuhuur ayaa ka mid noqotay iyadoo uu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu yidhi khayru sadaaqi aysaru meherka kiisa ugu khayrka badani waa ka ugu fudud xadiiska magaranaysa xaakim uu saxiixa ku tilmaamay oo markaasi uu nebigu weliba ficil u sameeyey bal isagu uu arrintaasi ka dhigay mid tusaale ah oo uu ummadda ugu noqdo tusaalaha uu nebi maxamed ka dhigay faadima ayuu u guuriyey cali bni abi aalib radia allaahu canhu wa ardaah marka xadiid ibni cabbaas radia allaahu canhuma uu nebiga ka warinayo ayaa wuxuu yidhi cali ayaa wuxuu yidhi faadimo ayaan guursaday radia allaahu canha faadimo dabadeedna rasuulka markii aan de guurkeedii damcay ayuu rasuulku ayaa waxaan ku yidhi buu yidhi yaa rasuula allaahi ibni bi macnaha ii dhis oo kale dabeedna rasuulku wuxuu igu yidhi acdihaa shay-an waxusii meher waxaan ku yidhi buu yidhi cali maa cindii min shay waxbaba ma hayo xalliya waxaan ku meher iskaga bixiyo ma hayo dabeedna rasuulka in adeerkiina wuu ahaa waan wada garanaynaa wuxuu ku yidhi fa ayna dircuka alxudaamiya bahalkii muxuu ahaye aada xidhan jirt dircu wuxuu ahaa bahalkan dagaalka loo xidho
la iskaga difaaco warmaha iyo leebabka iyo seefaha meed buu ku yidhi dabeedna wuxuu ku yidhi cali waan hayaa markaasuu yidhi faacdiha iya kaabasi isaga laftiisa si waa xadiis saxiixa markaa nebigu sal allahu alayh wasalam hadalkii uu yidhi khayru sadaaqi aysaru ficil buu u sameeyey waxaa jira oo maanta runtii bulshada dhexdeeda aynu naqaanaa iyada oo la og yahay maharku inuu yahay xaq ay gabadhu leedahay haddana waxaynu ognahay xaqaasi inaan sidiisii loo raacin oo allahuma salli calaa muxamadin aan loo bixinin culaysyada jira waxaa ka mid ah bixin la-aanta marka hore ayaa uu gabadhu iyadoo oo eegaysa ama ehelkeedu asxaab iyo ehel kaley leedahay waxay ninkii la saarayaa isaguna uu aqbalaya ayuu tunka iyo tuurta u ridanayaa ximla akthar min daaqa waxaanu qaadi karayn ayuu qaadanaya iskabana bixin karayo iyadoo ka saamaxda ha la joogee haddii kale waa dayn weligiiba lagu leeyay waa culays markaa nin aan waxbaba haynin baa 100 gram oo dahaba ayaa la odhanaya 100 gram 200 300 waxaa laga dhigay dhaqan markaasi aynu isugu faanaba dhaqan la isugu faano ayaynu ka dhigan waxyaabaha aan runtii iyaguna caqaladaha kale ka mid ah waxa ka mid ah waxbarashada wuxuu odhanayaa inankii ama inantiiba waxbaan baranayaa ilaa aan jaamacad dhameeyo oon digrii ka qaato oon haddana magister ku daro waxba guurku muxuu macno leeyahay waa sax oo dee muxuu haye cilmi la barto oo sharciga diinteennu diidayso laakiin waa caqabad taagan oyna haysataa weliba dadka runtii barbaarinta fiican helay way ku badan tahay ama qoysaska day dhaqaal ahaan yaro ladan ka soo jeeda aad bay ugu badantahay caqabadahaasi waxaa ka mid ah xafladaha waaweyn ee la sameeyo bale iminka waxyaabo dhaqan iyo diin iyo xataa curfigii bini aadamkeen halkan ilaahay ku abuuray intaba aanay aqbali karaynin baa la sameynaya ninbaa gaari soo kaxaysanaya wuxuu ku sawirayaa inantii oo time qaawan ama hadday doonto qoortu bannaan tahay ama muxuu hayay xubnaheedii ay qaarkood muuqdaan dabeedna baabuurka muraayadiisa ayaa sticker lagu dhajinayaa isagana sawir baa lagu dhajinayaa waxaa kaloo iyaduna jirta oon ka warhaynaa inan iyo inan aan isqabin oon wax dhici doona laba tallaaboba dhexdood bay tala ka dhalataa baa la yidhaahdaae aan la ogeyn ayaa bil ka hor usbuuc ka hor muddo ka hor lagu sii xayeysiinayaa muxuu hayay facebookyada iyo muxuu hayay bahlaan lagu xidhiidho bulshada ku xidhiidho baraha bulshada ayaa lagu sii xayeysiinayaa bale waxaaba loo odhanayaa coming soon baa loo bixiyey coming soon dhaqso ayaa la isu guursanayaa sharciga baneeyey waa kee qiira la-aanta noocaasi waa maxay gabadhaadii aada asturi lahayd inaad bannaanka soo dhigto inaad facebookyada soo dhigto waa wax runtii aada iyo aada u liita waana dhaqan in laga faano ay tahay
markaan leeyahay laga faano qofku xataa isaga oo aan mabaadi diiniya ku salaynaynin waxyaabaha qaar baa jira dhaqan ahaan aanad aqbali karaynin waxaa ka mid ah deen qiirada oo kale masalan hinda markii ay nabiga uu baycada ka qaadayay haweenka walaa yazniin markuu marayay walaa yazniina walaa yaqtulna walaa yazniin intay soo booday bay ku tiri aw tasni alxurra yaa rasuul allah oo gabadha xorta ah miyay zinaysataa iyadoo oo laata iyo cusa caabudaysay ayay ceeb agteeda ka ahayd ama dhaqan liita oo aanay aqbali karin bay ka ahayd inay markaasi zina gasho ama ku dhacdo inanta iyo ehelkeeda aqbalaya in Facebook lala wareego oo way dhacday qaar intay Facebookyada isku soo qoreen ama sawirradii dhigeen haddana sababtay doontaba ha noqotee ay suurto geli weyday inuu guurkii halkii ka sii socdo u dhaco waxyaabaha caraaqisha ah ee hortaagan guurka waxaa ka mid ah in aan la fahmin ujeedooyinka guurka ee aynu qaar ka mid a sheegnay ku dayasho indhala-aan ah in lagu guursado oo heblaayo iyo hebel ayaa isguursaday dabadeedna iyadoo aan laga fakerin wax intaa ka sii dambeeya waxaa ka mid ah inaynaan haysan bulshada cid tawjiihisa oo kala hadasha guurka iyo markaasi khayrkiisa ama kala hadasha muxuu ahaayey dhibaatooyinka iyo in training ba loo galo dee waxaad ogtiin haddaad gaadhi kaxaynayso inaad liisan u baahan tahay dee guurkiiyo noloshii qoyska ahayd ee ubad la soo saarayay ee awlaad magaranaysa ayay ummadda wax ku soo kordhisa ilaahay laga rajaynayay inuu kugu arsaaqo bal ka waran haddaanad aqoon in yariyo in badan toona ku lahayn ee baahidaada jinsiga ah oo keliyaatii ay ku wado ilaahay guurka markuu inooga warramayey waxyaabaha isaga lagu garto weeyaan oo min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma ina fii dalika laaaayaatin liqowmin yatafakkaruun waa wax ilaahay lagu garto oo lagu aqoonsado ujeedooyinka laga rabaana waxa weeyaan deganaansho iyo naxariis lamaanaha dhexdooda taalla bal ee maqaasida culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa ka mid a irtifaaqu kulla waaxidin min asawjayni bisaaxibihi labada lamaane mid waliba ka kale inuu naxariis u yeesho oo u naxariisto xurmeeyo ixtiraamo gabadhu markay isguursadaan ninkeeda inay aada u qadarisay xurmayso waajibaadkuu leeyahay ee diinteena iyo shareecaddeenu siisay ay fuliso ninkuna wixii ilaahay uu mas-uuliyadda uu qaaday uu fuliyo tusaale ahaan waxaa ka mid ah in marka la isguursado ee ilaahay awlaad keeno inta ugu badan leh oo inta ugu badan aan qorshe aanay ka lahayn aabbaha iyo hooyadu tarbiyadda awlaadda inaanay qorsheba ka lahayn way isguursadeen awlaad baa ilaahay kala siiyey laakiin qorshe kama leh dabeedna maxaa dhacaya anwaac wa ashkaal inay soo baxaan bal miyaad rumaysanaysaan inay maanta halkan joogaan dad ka fakera ama matalaya filimada hollywoodkiiyo lagu sameeyo qorshe la-aanta guurka iyo guurku midhaa laga goostaa waa iniintaasi la beerayo waxaanu aragnay oo nin odayoon wada shaqaynaa nooga sheekeeyey inan yaroo dhallinyara
ayaa mid kale ayuu maalin walba indhuhu saa ugu gubaa markuu arko mar kastuu ka soo horbaxo indhuhun buu la raacaa jooquma idhaahdo haddana wuu ku gubaa suuligu is idhaahdaa tag uu ka daba tagaa wuu hor joogsadaa sidaas uu eegaa lama hadlo markuu muddo ku wadu yaaban yahay kii kale ayuu u yeedhay oo wuxuu ku yidhi aniga ima garanay sidee waxa la yidhaahdaa hebel 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 adigana waan ku garanayaa waxa lagu yidhaha hebel 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 xaafadiinu waa halkaa fasalkaasaad dhigataa lambarkaasaad leedahay baskan lambarkaale baad raacdaa muxuu ahaye kursiga halkaasaad fadhiisataa noloshaadoo dhan dhakadaan ka wada hayaa dhiiggaaga noociisu waa nooca walaalada kakaaweyn waxaa la yidhahdaa hebel inanta kale kugu xigta waxa la yidhaha caynka kii baa yaabay waxaan doonayaa inaad isiiso 2 gram oo dhiig ah oo ku dhex jira dhiiggaaga inaad isiiso xanuun baa hayo oo maskaxda ayuu bahaligaga dhacday buro markaa dhiiggaaga ii dawa kii miskiinka ah wuu qayli wuxuu isiri war waa maxay masiibada lagu soo diray dabadeedna in yar ka bacdi ayuu daw inankii seexan waayay maalin dambe horta ka daba tegay isagoo suuli ka sii gelayo wuxuu sitaa bahashan ee dhakhtaradu kaadida iyo lagu qaado shaybaadhada wuxuu ku yidhi neew igu shub in yaroo kaadidaadaan soo baadhaya dabeedna kii dee wuu argagaxay wuxuu isin waalidkii buu u sheegay waalidkii waxba way ka hoos qaadi waayey waxay isiraadeen ilmahani waxbaa awhaam iyo waxaan jirin baa istusaya ilaa uu seexan waayo wax cuni waayey uu meel walba maray markii dambe la isugu yimi waalidkii u yimaadeen qoladii maamulka iskuulka say wuxuu jiraan inankii baa loo yeedhay wareedhe waa maxay waxan wax kale maaha aniga hiwaayadaydii waxaan jecelahay waxa weeyaan filimada Hollywoodka ee vampire-ka iyo horror-ka iyo wax la yiraahdo ayaan xoog u daawadaa marka waxaan doonayay bal awoodayda inaan tijaabiyo anigu aan ku samayn kara taasoo kale laakiin maan islayn halkanay gaadhaysaaba kama fakaraynin in waalidiye anigana waalidkay hay sheegin inan kaana walaalkayo waxba uma qabino way rumaysan kari waayeen cid waliba arrinkii saaxiibadii cid walba baad macnaha qisada maxaan uga jeedaa qorshe la'aanta markaad aragto maalina inan baa noo yimiyo aabihii baa ka cabanaya aabihii baa qaad dabeedna inankii afku marmaroorinayaayo marba dhinaca war maxaa kugu dhacay aabaha miyaanu ahayn soo miyaan xishoonay afriku igu soo lugooyay wiilay afrika ayuu igu soo lugooyay hadalka aad u dhageysta afrika ayuu igu soo lugooyay calashaan imuu dhalin wuu i soo lugooyay caalam kale aan iska joogi lahay waa qorshe la'aanta guurka markuu arko dadka qaar baa jira markuu arko mashaakil noocana iyo ciyaal fawda ah iyo kuwa waalid caasiya iyo kuwa aabayaashood iyo hooyooyinkood leynaya oranaya war sabankani balaya guursatee tagoogaaga ha ku jiro intii uu dunida baabiin lahaa ama dambi ku soo jiidi lahaa waxaan uga socdaa caqabadaha iyo qorshe la'aanta ayay ka mid tahay waxa ka mid ah اللهم صل على محمد بلشدي oo lafteedii caa'iladahan iyo qabiil ahaan iyo qaabkii la isugu xidhnaan jiray aad moodo in ay gashay ciladii guurkii kambaldaaq buu noqday guurkii wuxuu noqday kambaldaaq berigii hore dhaqan ahaan inaga waxa laga kala guursan jiray meelo fogfog inantu dabadeedna ambassador bay noqon jirtay inanta ceerigaaba laga soo guursaday ee degan gurnagadiyo sagag iyo fiiq marka halkaa loogu tago wax weyn bay ahayd oo dee qiimo leh laakiin milix haddii milix lagu daro maxay dhadhantaa yaa way isla qadhaadhaataa dheriga haddii la 2 jeer milxiyo in adeertaabaad guursatay guurka soomaalidu nin oday baan ka maqlay wuxuu yiri guurku nin aanu xishood idinka dhaxayn buu idinka dhaxaysiiya
nin aanay xoolo isa siini idinka dhaxayna wuu idinka dhaxaysiiyaa nin aanay xidhiidh sokeeyanimo ama isu dhowaansho idinka dhaxayna wuu idinka dhaxaysiiyaa nin aan hiil idinka dhaxayna wuu idinka dhaxaysiin jiray waa siday ahaan jirtay laakiin iminka wuu soo ururayo in adeertii ayay maraysaa iyada lafteedu waxay alcirqu dasaas bay yidhaahdaan halashaan xataa dadka intelligence-koodii ama garaadkii marka la eego xagga biology-ga dadka isu dhowey qaraabada dhowihii tafiirtooda ay dhalaan maskax ahaan iyo garaad ahaan waxay yidhaahdaan way ka yar tahay ta dadka kala durugsani ay dhalaan bal ka warrama dadka kala durugsan tay dhalaan way ka yara ma garanaysaaye way ka fiican tahay waxaa ka mid ah xulashada carqaladaha waxaa ka mid ah xulashada iyo macaayiirta lagu xulanayo cidda aada nolosha la wadaagayso dhallinyarada maalan oo kale ragga rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam idaa khataba ilaykum man tardawna diinahu wa khuluqah fasawijuuh ilaa tafcaluu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid hadduu idin yimaado cid aad ku raali noqotaan labadaas sifo u fiirsada diintiisa iyo dhaqankiisa ama akhlaaqdiisa u guuriya hadduu kaa soo doono inantaada ninaad ku raali noqoto diintiisa iyo dhaqankiisa u guuriya ma haddaad sidaa samayn weydeenbaa fitno weyn ayay dhulka dhexdiisa ku noqon fasaad baaha oo baaxaddiisa qiyaastiisu weyn tahayna wuu ka dhex dhici doonaa halka aleelehe waynu aragnayoo taa waynu taabannay nin odaya buu iiga sheekeeyo hablo badan dhalay ninaannu saaxiib nahay wuxuu yidhi hablo badan buu dhalay hablihii markay guurgal noqdeen wuxuu shuruud ka dhigtay in aanu ninka gabadh ka soo doonaya odayaal iyo ehelkaas soo kaxaysay aanu odhan labadaas qiyaas unuu saaro diintiisa iyo akhlaaqdiisa islaamku sheekh la yidhaahdo salmaan cawda oo iminka sacuudiga ku xidhan ilaahay isagiiyo inta kaleba xidhanba ha u gargaare oo ha ka furfure ayaa faransiiska beri tegey may jirin markaa social mediahan iyo waxan dabeedna faransiisku waa meelaha ugu faaxishka badan wuxuu yidhi miyaad rumaysanaysaan haddii aan idinku idhaahdo faransiiska shareecada islaamka 70% baa laga fuliya dad badan baa yaabay islaamka 70% waa akhlaaqiyaad xuduudu waa 30% waa 30% markaa rasuulku wuxuu leeyahay cidda aad ku raali noqotaan diintiisa iyo dhaqankiisa hablihiina ku dara ninka odayga ahi labadaasuu ku dhigay nin kasta oo yimaada wuxuu idhaahdaa lacagadeer waxba aniga haysiin dabeedna ninka iiga sheekeynaya wuxuu ku yidhi anigu waxaan ka mid ahaa markaan maqlay buu yidhi aniga oo ardaya oo jaamacad dhiganaya oo aan $100 haysan ayaan isiri buu yidhi wallaahi meeshanay ka dhowaatayba halkanay ka soo dhowaatay odaygii baan u tago waxaan ku yidhi buu yidhi adeer dee waxaan doonayaa inaad inantaada ii dhisto ninkaana waan ahay waanad soo baadhi kartaa odaygii baa muddo iga maqlo uu yidhi markuu warka iga soo helay buu igu yidhi inantu way yar tahaye waxaan jecelay inay kuu yaro korto oo way da'deedaa yare guriga ha kuu joogto 2 sannadood ballanna waxaan kaaga qaaday inaanan intaan noolahay hadday qalinka iyo qadarka rabbi aanu dee wax bedelin in aanan cid kale ku darin oonan siinin dabeedna waxaan ku yidhi adeer ma sugi karayo 2 sannadood waad mahadsanta ninkan sheekada ka sheekaynaya ayaa wuxuu yidhi tegey kii baa 2 sannadood sugay bal odaygaa gobonnimadiisa wuxuu yidhi inankan kale waa arday ila mid ah
intuu u dhiibo $50 ayuu ku idhaahdaa inantii adigay kuu doonantahoy ku sugaysaaye hadiyad orodoo u soo iibi hadiyad buu soo iibiyaa inantu u keenaa haddana muddo ka bacdi buu u dhiibaa odagaa dhiibaya soddonka dee ninkii isu diyaarinayay $100 buu waxay dhahaa afraadda caa'iladda gebigeedaba qof iyo waxoogaa yaroo hadiyada u keen rasuulku muxuu yidhi sal allahu alay wasalam tahaaduu taxaabuu inantii ilaahay ninkii waa u barakeeyey guurkii ka bacdina way badhaadheen risiq iyo awlaad intaba ilaahay uu isugu daray bale hablihii ninkaasi xabadii meel xun kamay marin habeen hablo badanna wuu dhalay habeen inani kuma soo dudin sababtoo ah wuxuu qiyaas ka dhigtay xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa walaalayaal ka mid ah waxaa la yidhaahdo kafaa'at alaswaaj dadka isku kufka ahi inay isguursadaan oo dee laysu eegayo sidaynu sheegayno wanaag akhlaaq wanaagga iyo qudrada inuu kari karayo bal waxaa laga yaabaa in nin aad adigu isleedahay maanta inantaada wuu kaafii karayaa oo ladani inay markay tagto agtiisa tagto ku dhibaatooto ama isagoo maanta aan waxbaba haynin markuu berri ka maalin gaadho oo ilaahay risiqa u furo uu raaciba waaye nidaamkii dee ilaahay baa ilanjideeye in hadduu ilaahay adiga kuu badiyo haweenka iyo muxuu ahay masaariiftana la kordhiyade soo sidaa ma aha cidda ilaahay ku cidhiidhiyey falyunfiq mima aataahu allah cidda ilaahay u ballaadhiyeyna dee reerkiisa isaguna ha u badiyo oo ha u ballaadhiyo siduu ilaahay isagaba ugu ballaadhiyey waxaa ka mid a in qabaa'il loo eego arrintaasi marka la taabto waa xasaasi halkaasi waa meel adag in la eego qabaa'il oo la yidhaahdo waa reer hebelna annaga nama geyo ma kala guursanno waa kaas ilaahayna wuxuu leeyahay yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum ina allaha caliimun khabiir ilaahay baa aqoon badana ah oo khibrad badana ah oo idin yaqaana laakiin qabiilka aad ka dhiganaysaan qiyaasta ugu sarraysa iyo waxa qofka lagu fuudhiyaa waxa weeyaan waa ujeeddada laga leeyahay waa inaad muxuu hayay isku garataan oo aad isku aqoonsataan laakiin ilaahay agtiisa sharafta iyo karaamadu cabsidii iyo cabsashadiisa ayay taallaa nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi sidaad wada garanaysaan dacuuha fa innahaa mutinna isbaashaha iska daaya way uraysaayoo way qarhmuun tahaye faraha ka qaada waxaa ka mid a caqabadaha in uu qofku cifadiisii dhowran waayo inaad cafiifnimadaadii ilaashan weydo maxaan uga jeedaa inay xaaraan qofku ku dhaco gabadh ayaa ninkeeda waxay raalli kala tahay inuu dusdusuu meel daran maro laakiin inuu gabadh kale guursado dhegaheedu ma maqli karaan dhaqankaa waxaan ku maqli jiruun meelaha carabaha iyo waxaas laakiin xaqiiqadaasi hadday macaantii hadday qadhaadhahay waa laysa soo galay warkaasina uu yaalla raggii wan wanaagsanaana mid kasta islaam baa xuurtaysatay oo meel ku haysataa dabadeedna mathna wa thulaatha wa rubaac agteeda kama shaqayn karto iyada nin baa ii sheekeeyeyoo wuxuu yidhi xaaskaygaa qur-aan igu ag akhriyaysay cod aada u qurux badan dabadeedna sidaan u dhegaysanayey een dhegta anna u raaricinayay ayaa waxay soo gaadhay buu yidhi
fankixuu maa dahaba lakum min annisaa'i mathna way aamustay buu yidhi hoos bay ka akhriday hoos bay ka akhriday buu yidhi waa caqabad runtii jirta dumarka haddii raggoodu ay ku filan yihiin dhaqmaatin ahaan iyo dheef ahaan iyo markaasi dhaqasho ahaan ay ku filan yihiin guuriga iyo guurka xalaala iyo walaalaheed arrinkaasi waxaa laga yaabaa inuu cuslaado oo iyaga agtooda ay waxyaabo kale akhristaan laakiin sharciga ilaahay iyo wixii ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada xabiibka moxamed sala allahu calayh wasalam ku qoran dee kaga indhaqarsan mayno xaqiiqadaas waxaa ka mid a caqabadaha dadka ee guursanayoon la saacidin oo qofku isaga iyo keligii ay tahay berigii hore dhaqan ahaan soomaalida waa la iskaalayn jiray marka miyiga la joogo soo sidaa may ahayn kaalaa jiri jirtay laakiin iminka isaga ayaa loo soo faraxashaayoo la idhaaha keen xoolo rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam xadiidka abaa hurayra uu wariyay ee xasanka waxa uu leeyahay halaaatun xaqun cala allaahi cawnuhum ilaahay baa u gargaarayaa saddex almujaahidu fii sabiili اllah wاlmukaatibu aladii yuriidu اladaa wاlnaakixu aladii yuriidu اlcafaaf qofka muxuu haye ilaahay jidkiisa u dagaalamaya iyo addoonka xoolo lagu xidhay ee la yidhi maanta intaa bixi xor baad noqonaysaaye in loo gargaaro oo innaguna aynu kaalmayno iyo qofka guursanaya ee doonaya in uu dhowrsado oo uu xaaraan ka dhowrsado taasina waa caqabad kale oo taagan waxaa ka mid a cabsi dad badan oo aan ku kalsoonayn ama aanay qalbiga u gelin ilaahay warkiisa waxba ma hayo guurka laftiisa arsaaqda fura in yakunuu fuqaraa yuqnihim allahu min fadlih haddii ay fuqaro yihiin buu ilaahay leeyahay fii suurati nuur ilaahay baa ka dhigayaa aqniyaa fadligiisa iyo dheeraadkiisuu u furayaa alleh jala jalaaluhu waa cabsi jirta waxaa ka mid a caqabadaha waan soo gabagabaynayaa dad ama ragga weliba ha u badato guurkii wuu karayaa carruurtii hore way ka yaro koreen islaantii hore halkanay muxuuha ay joogtaa ay ka gabowday ama waxoogaa waa la isla yaro waayeelayaan odhan way ka gabowday waa la isla dabeedna wuu baqanaya wuxuu isleeyahy maanta haddaad guursato adeer inan yar iyo warkeeda maxaydin isweydiin halkaad uga bilaabi waay waxa nin baan iswaraysanay sheekadaasi waa sheeko runtii ata'adabda ina masaajka ka sheego laakiin waxaan tusaale umaan ku soo dhawaysanaya wuxuu yidhi anigoo ooridaydii ama xaaskaygii muddo badan muxuu haye kelmaduu cabiray baan cabirayaa muddo badan aanay cilaaqadii gogasha isugu imanin ayaan ninaan walaalanahay oo ladan oo xoolo badan haystay ayaa geeriyooday allah u naxariistay gabadh yaroo uu ka dhintay oo 2 carruura leh ayay odayadii xigtada ahaayee xaafadda iyo ehelkii ugu idhaahdeen gabadhaasi waa dhaqankii soomaalida yaanay meel kale la tegin carruurta iyo xoolaha oo nin kale iman inay gabadha guurso odayguna waa oday yaroo iska xoogaho waxuu yidhi wareedhe waxaasi ma diyaar ma yihi adigu muddaa lagu ilxaaxiyey kabacdina ninay aada isugu dhuun daloolaan ay wada sheekaystaan ayaa ku yidhi hawshaa gal anigaa kugu qalqaalinaya oo mudduu ku waday odayga alxamdulilah gabadhii wuu meheriyey warwarka hayay wuxuu ahaa warwarkii reerkiisa hore de ilaahay baa keenay gurigii dabadeedna odaygii dib buu u cusboonaaday hawshiisiina
sidii la arki jiray buu shaqadiisii u qabsaday muddo markuu usbuucii koobaad reerkiisii cusbaan la joogay ayuu tegey isagoo yaro baqanayo islaantii dee maxaa ka soo socda leh islaantiis mabay wareerinoo dee ileen xogogaal bay isu ahaayeen waxay ku tiroonayaan inkaar qabe maxaad inanta islaamiyad u lugoysa odagina wuxuu yidhi khayr qabtaan helaye khayrka ila wadaag islaanta halkii naase iyo buuq iyo qayle laga filayay waxay ku tiri uun markii khayrkii la wadaagay waxay tiri uun iige khayr qabtadii aan isbarannan soo salaame khayr baa furmay markaa odayaasha baqanayana waa khayr waxaan runtii kaga baxaynaa rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidkaasi cabdillaahi bin mascuud baa wariyey waa xadiid saxiixa yaa macshara ashabaab man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj dhallinyarooy ciddii awoodi kartaa albaa'a awoodda guursiga ma ahata xafladaha iyo meherada qaaliga ah iyo baabuurta badan ee la ysdaba dhigo iyo ma aha waa ta aasaasiyaadka ah fainahu aqatu lilbasar wa axsanu lilfarj waman lam yastadic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaa gabagabadu waxa weeyaan maanta waxaynu u baahannahay arrimaha ijtimaaciga ah ee tan oo kale ah cid dhiirata masaajidada ayaa la yidhi hablaha lagu bixiyo laakiin dhaqankii suuqa ayaa masaajidadana la keenay soo saa maaha lacag baa lagu kala boobayaa qofka soo gelaya masaajidku xurmuu leeyahay habloola waa gurigii ilaahay iyadoo ilaahay adduunyada iyo innaga iyo inta ku jirtaba leeyahay haddana fii buyuutin adina allah ilaahay baa wuxuu ogolaaday ama weyna faray in ilaahay lagu xuso marka la soo galo habbaa loo galaa labada logoota la doono layskama soo geliyo adigoo hadlaya oo buuqaya lama soo galo duco iyo dikri baa lagu soo galaa markaad soo gasho meeshaad doonto fadhiisan maysid salaam buu leeyahay masaajidku 2 ragcadood baa la tukadaa dhowr iyo 20 arrimood oo sidaa u kala duwan ayaa ma garanaysaa intaas oo gelida iyo macaamilka masaajidka oo kaliya leeyahay dabadeedna lacag baynu ku qaybsanay booq baynu ka dhacay waxa laakiin igala wanaagsan aniga ra'yi ahaan in aynu fududayno oo aynu reeraha dhisno oo lacagta gabaatiyada iyo gawaadhida iyo hudheelada iyo meelaha fogfog lagu kharash garaynayo reerka ay ka muuqato wallahu a'lam wa ahkam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.